بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan rabnaa maanta inaan ka hadalno arrinta ka jirta gobolka Sanaag hore uga dhacday gobolka Sool Somaliland ay wado arrin qabiil inaanay ahayn baanu cadeynaynaa ay tahay arrin dawlad cid sheeganaysa iyo maamul hawsha inay wado dal iyo dadna doonaysa waxa marka iyada taas shaki kuma jiro waa war cad waxaanu marka baaq u diraynaa cidda aan soo sheegay ciddii dhigeeda ahayd maxay ahaydeenay waxa ay doonaysay ama dalka ka talinaysay oo dawladda Puntland la oran jiray waxa weeye ilaa iyo hadda kama muuqato arrinta jirta waxa marka su'aalahan isweydiinaynaa waxay tahay ma dalkaanay ka talin oo dalkeedii ahayn ma arrintan maxay ahaydeenay sida aan u hayno ama loo ogyahay oo reer Puntland u ogyihiin aanay u ogeyn ma iyaga iyo Somaliland ta xiriir loo wax isku darsaday oo wax ka dhaxayaan arrimahaas ilaa iyo hadda nooma kala cadda waxaan marka sheegaynaa dhibaabaha dhacay saaka xildhibaanada la afduubtay oo Somaliland afduubatay oo guryahoodii intay ugu timi iyo meelihii consequence-ga laga soo dooranayay intay ugu yimaadeen ay afduubteen oo ka afduubteen iyagii gaadiidkoodii oo haystaan dal iyo dad aanay shaqo ku lahayn bay yimaadeen waxa weeye marka arrimahaas oo dhan baa jira dhibta dhacday anagu xaqiiqadeed ma hayno laakiin dhaawac baa jira dhimashaa jirta walina way joogaan hawshoodina way ka socotaa Puntland waxaan ugu baaqaynaa arrintaas hashigeedu inaanu in la joojiyo mas'uuliyiinta dalka ugu sarreysa oo haysataana hawshaas si dhab ah inay ula baashiraan waxna uga qabtaan oo degdega waa hadday dalka iyo dadka mas'uuliyiin u yihiin kaloo sheegaya baarlamaanku saaka uu ka hadlay arrinta wuxuu hayayna wuu dhigay guddibuuna u saaray guddidaasaana hadda hawshaa geli doonta fadhigeedu horaadna haddu ay fadhiisan doontaa insha Allah iyadana warkeeda waa la sugayaa baarlamaankuna waa ka war sugayaa taasna waxa weeye insha Allah inaan xusuusiyo baan rabaa maxay ahaydeen shacabka Puntland waxaan kaloo sheegayaa shacabka Puntland haddii dawladdiinni gaabisay hadday dawladdiinni dalkii iyo dadkii dayacday anuu ka mid baanahay dadka iyo dalka dayacay baan ka mid ahay hadday dayacday shacabku dalkooda iyagaa difaacda turkiga waad ogeedeen wixii ka dhacay shacab baa difaacay kaarayaashii bay isu dhigeen shacabka laga rabaa dalka iyo dadka inay difaacdaan haddii dawladnimo lagu difaaci waayo qabiil waa in lagu difaacaa